Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan asxaabteyda igu xiran. Maanta waxaan noo wadaa video cusub. Videogaas oo ku saabsan caruurta, waxyaabaha caruurta banaanka ay ka jecel yihiin oo aad gurigaaga ugu sameysato insha Allah. Markaa waxyaabahaas ayaan maanta guriga ugu sameynayaa. Marmar way fiican tahay caruurta in aan banaanka le mar walba waxyaabahan oo kale laga siiyo ma wanaagsana. Marmar inaad u karsatid. Hadda halkan waxaan ku haystaa malaay. Xagga baaquligan waxaa iigu jira chicken digaag. Malaayga waa kanaa baakadkiisa. Chickenkana waa idin tusi doonaa insha Allah bidnillaahi kariim bacda uu ku jiro. Isagana waa kan wuu diyaarsan yahay, waa jiir oo digaag ah. Markaa maanta guriga ayaan ugu sameynayaa iyo jibsi. Marmar guriga ayaa ilmaha lagu siistaa, mar walba ma wanaagsano in banaanka uun laga soo siiyo waxyaabahan. Ilmaha banaanka markii loo bixiyo way jecel yihiin oo jibsi noo gato way kan noo gato ay ku dhahayaan. Marka marmar guriga loogu sameeyaa qadaba ama cashaba uma baahanayaan insha Allah. Intaas haday cunaan iska dhadhanaansadaan. Marka maanta intaas ayaan u sameynayaa asxaabteyda qaaliga ah. Isla socod wanaagsan. Birtaas ayaa hadda kululeysanayna, saliid ayaa noogu jirta, iyada ayaan ku dubayaa insha Allah. Marka sida ay la socda asxaabteyda qaaliga ah, intay saliidda nooga soo kululaanayso ayaan sugeynaa insha Allah. Markay noo soo kululaatana malaayga ayaan ku bilaabeynaa hadduu Alle idmo. Marka sidaas ayaan hawsha ku wadeynaa. Caruurtana maanta oo kale farxadooda waxaa waaye in banaanka la geeyay oo kale ee la tahay oo banaanka ka soo cuneen oo kale. Marka daawasho wacan asxaabteyda qaaliga ah. Saliiddeeni hadda way noo soo kululaatay insha Allah. Hadda waan ku guranaynaa malaaygii ayaan ku guranaynaa insha Allah. Halkaas ayaan xabad u dhigayaa. Kadibna maxaa iraahdaa meeshasaan ugu shiilayaa insha Allah. Hadda sida ila socda isla socod wanaagsan daawasho wacan asxaabteyda qaaliga ah. Sidaas ayaan ugu wada gurayaa xabad hal mar kuma wada daadinayo. Xabad ayaan sidaas u dhigdhigayaa insha Allah. Saliiddan xoog ayay noogu kululaatay kadibna waan dhex dhigaynaa hadduu Alle idmo. Waan ka gedisanay kalluunkeeni wuu noo bislaaday malaaygii. Haddana insha Allah waxaan ku ridinaynaa digaageeni ama chickenkeeni diyaarsanaa ee jiirka ahaa. Dhadhankiisa iyo cusbadiisa iyo wixiisa oo dhan wuu wataa, uma baahna inaan wax ku dardarto. Sidaas unbaa u dubanaysaa ama u karsanaysaa insha Allah. Marka haddana chickenkeeni ayaan shiilanaynaa.
maasha allah digaagina wuu noo bislaaday sidaas ayuu u gudutay maasha allah quruxda badan kor ayaan uga soo qaadayaa cabaar ayaan dhigayaa halkaas saliid si uga daato uga dhamaado shabaqa saliid isagoo ka dhamaada ayaana ka gedisan doonaa insha allah sixna ayaan isagana ku shuban doonaa insha allah bidnillaahi kariim marka asxaabteyda qaaliga aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asxaabta igu xiran ee channelka ku xiran aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa asxaabta cusubna waxaan leeyahay nagu soo biirtay waad mahadsantihiin idinkana asxaabta kalena waxaan leenahay haddaad soo booqataan channelkeena please subscribe noo saar hadduu ku cajabiyo gambaleelkana furo si aad uga mid noqoto asxaabta nagu xiran haddana jibiskeennii ayaan shiilanaynaa insha allah oon saliiddii ku shubanay jibiskeennii ayaan haddana shiilanaynaa oon dhex dhiganay insha allah isagana markuu noo soo bislaado ayaan ka qaadan doonaa waad arki doontaan dhammaantood markaa soo diyaarsana insha allah asxaabteeda aad iyo aad aad u mahadsantihiin haddaad awoodaan noo sheer gareeyo fiidiyoyada oo aad ka heshaan laag commentiga waa noo dhiirigelin iyadana hoos noogu reeba laagta noo saara jazaakumullah ayaan idin leeyahay markasta iyo markastaba waad ku mahadsantihiin inta igu xiran iyo sida aad iigu xiran tihiin inta kalena waxaan leeyahay haddaadna soo booqataan sidaa mar walba idin iraahdo haddaad ka heshaan channelka please subscribe noo saara gabaleelkana furo si aad uga mid noqoto asxaabta nagu xiran isla socod wanaagsan haddana waxaan sugaynaa intuu nooga soo bislaanayo insha allah wax yar ayaa noo dhiman kadibna waan ka qaadanaynaa insha allah caruurta waxaa wanaagsan in marmar guriga looga farxiyo ee guriga ku farxaan insha allah ee waxyaabaha ay jecel yihiin guriga loogu sameeyo marka maanta intaan ayaa lagu qaabilayaa insha allah hadda wuu noo bislaaday jibsigeenii isagana shabaga ayaan kor suray si uu maxaa iraaday saliidda uga dhamaado dabkeenina waan dansanay saliiddeenina waan ka dansanay dabka hadda iyo soo diyaarinteedii insha allah waad arki doontaan isla socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah alaabteenii aan ciyaalka u sameynay maanta insha allah waa kasaa waa soo diyaarsanay halkana waxaan ku sidanaa mayonnaise-kaasna way ku jecel yihiin in ay ku cunaan caruurta marka isagana halkaas ayaa loogu dhiijinayaa nin walba in yar ayaa meel loo saarayaa jibsigiisa iyo malaaygiisa iyo jikinkiisa maxaa idhaahdaa kadibna meeshaasay ku cunayaan allah u daweeyo caruurta ka farxiya marmar guriga ugu sameeyo waxyaabaha banaanka ay ku jecel yihiin insha allah sidaas quruxda badan ayay noogu soo baxday asxaabteena nagu xiran aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin haddaad ka heshaan fiidiyowga biliis noo sheer gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu